بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مرتي شرفك وقاش شرفت له سلادينتا هوينكا بلشدة ريدك دليردا بعض الصحافة يعيدن كأمني قبل وحن ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن شعلها إن دقيقة هالكنقاته أن هاد نقو مدن عبد حاشي iyo mudane mahdi guuleed codsiga iga qaabileen oo aan ugu soo bandhigay hankayga ah inaan siyaasadda ka soo qayb galo way ku mahadsan yihiin. waxaa maanta sharaf weyn ii ah inaan hortiina soo istaago maanta oo taariikhdu tahay 28 bishii 9aad 2021 inaan hortiina soo istaago aan idinka codsado inaa isiisaan codkiina kalsoonidiina iyo ducadiina idaan idinku matalo xubin ka mid ah aqalka sare ee federaalka Soomaaliya. magacaygu waa Naciima Xasan Garweyne waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho. hadaan ka hadlo waxbarashadaydii dugsiga hoose waxaan ku qaatay magaalada Muqdisho. wixii ka dambeeyay dugsiga dhexe sare iyo heer jaamacadeedba waxaan ku qaatay dalka Holland oon ku barbaaray. waxaan xambaarsanahay darajo iyo aqoon 20 sano oo shaqo ah oo ka soo shaqeeyay wadamo kala duwan qaarado kala duwan oo ah Mareykanka, Holland, Soomaaliya iyo Somaliland. waxaan la soo shaqeeyay hay'ado caalamiya kambaniyo waaweyn oo ka soo qabtay xilal aad iyo aad u sareeya. 10kii sanadii u dambeysay waxaan ku sugnaa wadanka Somaliland iyo Soomaaliya oo ka qabtay sidoo kale shaqooyin kala duwan oo iyaguna la mid ah aan u shaqeeyay UN-ta iyo dawladaba. sanadkii ugu dambeysay waxaan ku sugnaa magaalada Muqdisho waxaan ka shaqeynayay xafiiska ra'iisul wasaaraha anigoo ka ah la taliya sare oo xagga sharciga ah. haddaba anigoo fahansan mas'uuliyadda iyo miisaanka culus uu kursigani xambaarsan yahay waxaan si sharaf leh uga codsanayaa awqaasha iyo odayaasha matala Somaliland inay kalsooni isiyaan iguna duceeyaan kursiga aqalka sare. waxaan kaloo fahansanahay inuu kursigan uu xambaarsan yahay mas'uuliyad iyo waxyaalo kala duwan oo ah inuu matalayo Somaliland, inuu matalayo haweenka, dhalinyarada iyo qarankaba. waxaan idin ballan qaadayaa inaan ka soo bixi doono aanan xabaaran doono lafdhabarna u yeelan doono mas'uuliyadda ballaaran uu kursigani xambaarsan yahay. waxaan kaloo idin ballan qaadayaa inaan talo iyo tusaalaba idinka idinku daban safan doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.